السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سو دوادا maanta haddii alla idmo waxaynu sharixi doonaa in aad samaysataan button shaashadaada right click si switch off dhamarka adigoo maanta oo dhan aan start tagin meel kale tagin hal button computerkaaga ka dami oo right click adigoo siinayo kaliya marka ugu soo horeysa waxaynu tageynaa startida markaan tagno buttonka inaga sameeynayna waayahay waxa ku qoraysaa registry editor wakaas aan idigu soo celiyo marka dhowr siyood baa u tagi kartaan aan markan waxaad ku dhufanaysaan waxa ku qoraysaan registry marka qortaan intaas halkaas idinka soo baxaya wakaa ama reg edit ayaa waxa ku qoraysaan runta haddii started ku shaqeyn weydo waxa qabanaysaa buttonka Windows iyo R kadibna kaasoo ku soo baxaya kadibna waxa ku qoraysaa reg edit labadaba uu ku soo baxaa labada siyood ba ka doonto isticmaal haddii kale registry caadi ugu qor halkan ayuuna keenayaa buttonkaas kadib waxaynu tagi doonaa ka ay ku taalo root kaasaad ballaarinaysaan kaasaynu ballaarinaynaa kaa markaynu ballaarino ayaa waxaan ka baaraynaa meesha ay ku taalo get down waxaan ka baaraynaa desktop background desktop because waa barta desktopka laga maamulayo so waxaan baaraynaa desktop markuu diida tago desktop background ayaan ka baaraynaa marka haddii aad mouseka degdeg u samayn kartana is okay marka waa kan diidi kadib waxaa ka baaraysaa desktop waa kan ka ay ku taalo desktop background ayaan sii galaynaa waan furaynaa shell ayaan furaynaa marka shellkaan sii furaynaa halkaas ay taagantihiin marka kadib inagoo halkaa taagan ayaynu shellka folderkaas right click baan siinaynaa new baan leenahay new key baan leenahay waxaan u bixinaynaa dami computerka waayahay enter baan leenahay halkana marka wuxuu ku leeyahay eega dami computerka markaa ku dhufataan halkan default value buu ku leeyahay ogaad kadib markaad intaa samaysaan waxay isna sameynaysaan waxa la dhaho dami computerka dooro right click si new key baa dhahaysa haddana kadib halka waxaa doonta ku qoro amar baan iska qoranaynaa amar kadibna enter baan leenahay amar markaan samaysano ayaan amarka defaultigiisa sii furaynaa intan ayaad gelinaysaan haddaba ogaada waxaad gelinaysaan waxa la yidhahdo shutdown.exe -s waan idiin soo dhaweynayaa -s waxaa kaloo gelinaysaan space -t waayahay waxaa kaloo gelinaysaan 00 waxaa gelinaysaan -f space iyo halkaas intan shaashada marka waa idiin saaran iyada lafteedu shaashadan idiin saaraya intaa markaa dhamaystirto okay baa dhahaysaa waan dhamaynay marka kaas waxa loo yaqaanaa magaciisa shutdown wakaa intaa markaan dhamayno oo aan okay soo dhahno haddaad shaashadaada right click siiso eeg shaashada right click sii wakaa dami computerka haddaad buttonka haddeer ku dhufataan computerku damayaa way soo restart garayna oo caadi buu damaya waa shutdown weeyaan so wakaa buttonkii waan samaynay daaqada intaynu ku qornayna wataa inta shaashadayda iga muuqato weeyaan aad iyo aad baad saaxiibayaal ugu mahadsantihiin daawashada casharkan waxaan rajayn doonaa asxaabta kalena la sii wadaagi doontaan السلام عليكم.